السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قيمة شرفت بدن أدبان إدي السلامية waxaan sameynayna sambal shahaadadan hadda hortina ka muuqata sambalkeedu kala sameynayna anagoo isticmaalayna programka la yiraahdo Word run ahaantii aad baynu u sahlan tahay ma dhib badna sameynta shahaadadan dadka qaarna markas ay ku qaadanayaan dadka qaar cilmi ahaan ay u fahmayaan si kastaba dhamaantiin waa soo wada dhaweynaya waa bilaabaynaa waxa soo furanaysaa Word-kaada hadii aad ku dhex jirtana dukumeenti cusub ayaa ka dhex sameysanaysaa marka hadda aniga horaan u isticmaalay Word-ka dukumeenti baan ka sameysanayaa marka Word-ka dukumeenti ka sameysato qaabkaas oo kale dukumeenti u yaala oo warqadiisa u taala warqada hadda anaga aan shahaadada ku design gareynayna waxa la rabaa inay jiifto si qaabkaas uga dhigaysa waxa tagaysa layout ama page layout groupka la yiraahdo page setup ka tagaysa orientation soo furaysa waxa ku jira laba option oo la yiraahdo landscape portrait iyo landscape portrait-ku waa mid buugta lagu qoro istaaga landscape-kuna waa jiifka marka warqada la jiifinayo hadda waa sugeynaa wax inta uu noqonayo landscape qaybtaas marka sidaas u jiifada waxa laga rabaa border in shahaadadu u yeesho xuduud si uu yeelaysa shortcut isticmaali karta alt ob waa hadii aad programka Word soo aragtay laakiin aniga hadda caadiyan meesha laga tago ayaan ka tagi doonaa page border aan ku dhifanaya si kastaba marka daaqadan border iska imaato ama alt ob oo b4 buuga ku imaaw ama caadi u imaaw waxa ku dhifanaysaa meesha hoose oo artiga hadana ku qoran tahay scroll-ka jiidaysa waxaan oo dhan waxa waaye borders jira tusaale ahaan marka anaga sambalka aan qaadanayno waa midkaas oo kale widthkiisa tusaale ahaan 31 oo kale aan gaarsiinaynaa color-kiisa oo kale waxaan ka dhigaynaa guduud design-ka asaga waxa la yiraahdaa concept kale oo baahan waa wax isha laga fiirinayo qaybtaas marka sidaas u sameysato waxaan rabaa geeskaas oo kale xoogaa inaan jaalle ka dhigo seen u sameynaa waxaan tagayaa insert aan tagayaa kadibna waxaan soo furayaa shapeska waxaan soo qaadanayaa midkaas ay ku qoran tahay rectangle hadda waxaan wax ku saabsan ma waa wax kale oo irar waa iska xiraysaa okay left mouse-kan qabanayaa waa sawirayaa anoo sameynaya dragging mouse-kaada adigoo isticmaalay left mouse-ka drag-ga sameynaysa waa jiidaysaa hadii tusaalaan shayga wax yar ka kala dheeraado kale falaaraha caadiga oo keyboard-ka ku sax kartaa almuhiim size-ka ka rabto markuu ku noqdo color-iska asiinaydo adiga kugu xiran tahay laakiin hadda aniga color-iskaas baan qaadanayaa shape fill waa color-ka gudihiisa shape ku show color-ka shape-ka color-ka gudihiisa ku shumaya shape fill loo yaqaan shape outline-kana waa wareegyada banaanka madow baan ka dhiganayaa aniga sambalahan kadibna weight-kiisa waxaan ka dhiganayaa size-kaas oo kale aan qaadanaya intaas marka qaybtaas diyaarino dhaxdii dhameeda laakiin waxay naga noqotay jaalle maxaan sameynaynaa insert aan tagaynaa shape kale soo qaadanayna afar geesa waa iskaga aatinaynaa bas kadibna maxaan sameynaynaa dhaxdiisaas waxaan ka dhigaynaa color cadaan aan ka dhigaynaa iyago muuskaada isticmaalaya kale ku siinaysa colorka cadaanka intaas markaa sameydo waa dhadhowdahay waxaa sameynaysaa qaybahaas oo kale aad shape soo qaadanaysaa laakiin waxaa la rabaa fiiri hal mar hadda ku laabato design-kii hore shahaadadaas hoose waxaa jira qoraal hoos maraayo oo qoraal kale oo ka koreeyo soo loo diyaarinaa waa nuqdo kale oo la rabo inaad fahantaan waxaa sameynaysaa insert aad tagaysaa kadibna waxaa soo qaadanaysaa text box haddaad doonto shape caadi waa ku qoran kartaa laakiin aniga text box-ka isticmaalayaa text box markaa soo furto meesha hoose oo ku qoran tahay draw text box-a ku dhifanaysaa geeskan oo kale imaanaysaa waa sawiraysaa marka caadi saas oo kale left mouse-ka isticmaalaya kan oo kale xoogaa zoom-kaan isticmaalayna hoose zoom-ka hoose ayaan isticmaalaynaa waa soo dhaweysanaynaa si macnaha qoraalka qorida u aragtaan qoraalka aan qoray u aragtaan waxaan qoraynaa tusaale ahaan siitam oo kale maadaama shahaadadan hadda ardada siitam loogu talagalay dhigata kadibna waxaan sameynaynaa fartaan xoogaa capital aan ka dhigaynaa shortcut waa isticmaali kartaa shift F3 haddaad rabto meeshaas hadda aniga aan tagayna waa ka tagi kartaa adiga baa joos kale capital ay noqotay kadib marka waxaan sameynayaa space aan leeyahay space waa dooranaysaa marka qaybtaana ku biinaysaa control C kadibna waxaa leedahay control V ama waxaa sameyn kartaa meeshaas copy iyo paste oo kuwana halkaas ka sii wadaysaa paste laakiin waxaa la mar walba inaan meeshaas kale joogtaa la rabaa kaliya ku siinaysaa paste yaalo waxaan rabaa background-ka dambe iskuulka markaas aan u sameynayno hadda inaan ku sharaxno macna magaciisa
isagoo dhammaystiranna waa ku samayn karnaa baasti saas ku wadaynaa okay ilaa dhamaadka macna begaas dhamaadkiisa kadibna inta kale koobi caadi aan isticmaalayna hadda lafteeda koobi waa ku wadnaa laakiin si maanta oo dhan waqtigu kugu soo gaabsamo intaana isla koobiyeysanaysaa kadibna waxaa leedahay baasti ku sidaysa ayagoo isla socda intaas marka ka dhiman macno ma lahan waxaa samaynaysaa saana u dooranaysaa kadibna control shift iyo j isla qabanaysaa si macna geesa ay ku tagaan kalarkiisa waxaa ka dhigaysaa kalarkaas oranjiga ayaa ka dhigaysaa kadibna waxaa samaynaysaa intaan waa koobiyeysanaysaa koobiyaa leedahay kadibna meesha hoose aad tegaysaa baasti ayaa leedahay baasti marka waa ku boobsiinaysaa waa ku celinaysaa ilaa iyo dhamaadka kan xoogaa zoomka gadaal aan wax yar u qaado kaliya ku siinaysaa ilaa meesha ugu dambeysa aad ka geynayso okay intaas markaa sidaas u diyaariso waxaa lagaa rabaa shahaadada qoraalkan aad qortay backgroundka inuu ahaada la rabo qoraal yar oo khafiif oo background ku jira inuu noqdo la rabaa maxaa lagaa rabaa marka inaad samayso horta no fill macna no fill iyo no outline labadaba soo dheh si macna caadi u noqdo shape-ka meeshaas aan hal mar sharaxayo maxay ahayd waxaa la rabaa qoraalkan hadda qoran haddii qoraal kale lagu dardaro macnaha uu kusii darsamaa annagana waxaan rabnaa iskuulka magaciisa waxyaabahaas inaan samayno maxaana laka rabaa inaasan qoraalkan aan iska taajino oo caadi uu noqdo qoraal background uu noqdo aad u sahlan tahay waxaa samaynaysaa shape ama text box iskaga aatinay hadda aniga text box soo qaadana dharow waan leeyahay geeskaas oo kale aan tagayaa waa la ekaysiinaya sidaas marka oo la ekaysiyo cadaan uu noqdo qoraalkii uga qariyay shape formatkaas aan ku dhifanayaa kadibna waxaan leeyahay no fill kadibna waxaan leeyahay no outline hadda haddii aan kuu soo dhaweeyo fiiri oo qaybtan asaas kugu soo dhaweeyo wax walba la qoro qoraal walba qorto qoraal kale uu ka koreeyaa ma arkaysaa hadda marka aniga kan sambal ahaan adigan kugu tusayo uma baahni waa iska tirtirayaa waxaan samaynayaa zoomkan waxyar aan gadaal u qaadaya hal mar waxaan rabaa designiska geesahaas ku jira inaan sameeyo xaggeen ka helaya insartigaan tegayaa shapeska kaas ay ku qoran tahay right triangle kaasaa ku dhifanaysaa left mouse-kaa qabanaysaa waa sawiraysaa ilaa iyo qiyaasaan intaasoo kale kadibna calaamadaas rotate-ka waa qabanaysaa waa wareejinaysaa saas oo kale okay qiyaasi markaa saas oo kale ka dhigto geeskaas oo kale gelinaysaa waxyar zoomka aan ka qaadno sidaas oo kale markaa dhahdo waxaa lagaa rabaa shape filkiisa tusaale ahaan inaad ka dhigto color salan buluuga no outline inaad tiraahdo kadibna home tab aad tegaysaa copy ka samaynaysaa kadibna baasti yaa leedahay aniga laakiin caadiyan kaliya haddaan ahaa lahaa control D aan isticmaali lahaa kan tusaale ahaan waxaa ka dhigaysaa kalarkiisa madow waxyar geeska saa usii sikinaysaa ka kalena haddana waxaa leedahay meeshii waxaad tegaysaa aan dhehe home tab aad tegaysaa kadibna baasti yaa leedahay ka kale saalan kalarkiisa waxaa kasii dhigaysaa ama yaray hadduu xoogaa saaid kugu badan yahay waa sii yaray kartaa waxaa ka dhigaysaa saalan kalarkiisa isagana guduud oo kale okay intaas markaad diyaariso waxaa lagaa rabaa intaan geeskaas kale inaad geyso waa fududaynaa maadaama kilib aan ku jiro geeskaas oo kale aan rabnaa inaan dhigno qaybtan mar kale ma samaynayno waa dooranaynaa kiligaa ku siinaysaa midka koowaad kadibna control qabanaysaa ka kale kilig markay kuu doormaan right kiligaa ku leedahay kadibna group aa isku leedahay intaan markaa group iskaga dhigto haddana control D aa isticmaali kartaa ama copy paste aa leedahay qaybtan geeskaas markaa geedo ayadana sidaan oo kale u wareejinaysaa qaybtan kale kadibna ayadana qaybtaas geeska saas oo kale u gelinaysa waliba cabir isla oo ku qiyaasan adiga inay ka kala dheerin lama rabo design-ka shahaadada marka hadda sidaas u diyaarisay maxaa ka dhiman oo kaliya waxyar xoogaa kan xoogaa waxyar aan xagga u sikino yaryarayno kana asagana saalan waxyar aan saas u yarayno qaybta asagana aan saas u yarayno okay meeshaan oo kale waxyar aan saas kor u qaadno intaas markaad diyaariso waxaa laga rabaa marka qoraaladan caadiyan hadda aniga ay diyaarsan yihiin waxaan sameynayaa kan caadiyan usoo qaadanayaa qoraaladan caadiga hadda waa kana saas oo kale qof walba qoraalkan wuu qori karaa qoraaladan marka waxyaabaha muhiimka ka oo la rabo faray ku qoran yihiin fartan waa Arial Black fartan 8 qoraalkan hoose linkiga idin soo dhigi doonaa tan waa Calibri fartaas hoose oo sidaas oo kale ayadana waxaa la yiraahdaa monotype baa la yiraahdaa cabirkeedana waa arkaysaan marka qof walba hadda qoraalkan uu soo qori karaa wax mushkila ma lahan aniga hadda iska koobiyeysanaa koobiyaan leeyahay waxaan dhex tagayaa kayga kale aan dhex tagayaa kadibna baasti aan ku leeyahay qaybtan caadi saan oo kale aan soo diyaarinayaa waa soo qaadayaa okay soo kale
qaybaha kale iyo harana tusaalaan ayagana sidaas oo kale aan sameynaya qof walba inuu qoraal qori karaan rajeynaya laakiin waxaa muhiim ah design-kaas inaad diyaari kartid oo macnaha design-kii lagu diro inaad sidiis u sameyn kartid qoraalkan asagana hadda sidiisa kulli waa soo wada koobiyeysanaya okay saan marka usoo koobiyeysto waxaan sameynayaa kayga hore aan ku laabanayaa oo i diyaarsanaay weliba waxaan sameynayaa si qoraal caadi ah meel iskaga dhigin tagasi box ayaan ku sameysanayaa oo ku sawiranayaa kadibna control v aan leeyahay qaybtan markaa sidaas u dhigto waxaan sameynayaa no fill iyo no outline qof walba inuu fahmi karaan rajina waa qofkii wordka programka la yiraahdo soo ararkay size-ka hadduu xoogaa ugu weyn yahay hadda waxyar waa sii yaraysan karaa ana caadiyan waxyar waa yaray karaa size kadib qaybtan marka waxyar aan hoos soo qaadaya halahaas oo kale aan ku aatinaya meeshaas oo kale aan dhigayaa qaybahan kale ayagana caadiyan usoo koobiyeysanaya labadan control C aan leeyahay kana imaanaya isagana control V aan ku leeyahay okay qaybtan marka u dambeeyay ayadana oo certificate-ka waxaan sameynayaa sidii oo kale control C kana imaanaya control V okay intaas markaasaas u diyaariso oo qaybtaas sidaas u dhammayso waxaan rabaa geeskaas oo kale meeshii sawirka la soo geli lahaa dhowtii inaan sii diyaariyo shape caadi ah gees aan soo qaadanayaa qaybtaas kadibna kalarkiisa tusaalahan waxaan ka dhigayaa caddaan haddaa rabto marka qoraal caadi waa ku qori kartaa oo iska caadiya maxaa sameynaysaa kan oo kale control D dhahaysaa copy ka sameysanaysaa kadib tusaale ahaan kan oo kale cabirkiisa ayaan wax yar aan yaraynayaa oo qaybtan aad u yareynaa waxaan rabaa marka inaan ku calaamadeeyo tusaale ahaan photo oo kale inaan ku calaamadeeyo aan rabaa photo oo kale haddaa rabto inaad wareejido rotate waa ku sameyn kartaa saas oo kale qaybtan ayadana saas oo kale usoo qabanaysa draagan caadi meesha photo loogu talagalay wakaas marka sample shahaadadii waa taasaa kadibna maxaa sameynaysaa PDF ahaan ayaa u save garaynaysaa marka laakiin waxaa jirta wax yar waxaan rabaa inaan ku daro intaan dhammayn shahaadada waxaan rabaa caddaankaas oo dhan in uga baxo tusaale ahaan maxaan sameynaa waxaan tagayaa insert aan tagayaa waxaan soo qaadanayaa shape caadi ah fargeesa waxaan sameynayaa drawing aan sameynayaa saas oo kale ugu aatinayaa qaybtaas markaan sidaas u diyaariyo oo sidaas aan u sameeyo shape-ka gadaalaan rabaa inaan u diro tusaale ahaan waxaan leeyahay meeshaas waxaan tagayaa shape format-ka kadibna groupka arrange-ga waxaan leeyahay falaarta send back ayaan soo furayaa kadibna send to the back ayaan kalarkiisa tusaale ahaan kalarkaas oo kale baan iska qaadanayaa no outline ama outline-kiisa waxaan u ekaysiinayaa isla asaga kadib maxaa lagaa rabaa PDF u save garaynaysaa F12 aad taabanaysaa certificate aad ku qoraysaa marka certificate wordka sida aan u isticmaalo hadda Photoshop oo kale waa loo isticmaali karaa waxyaabo badan uu leeyahay oo shahaadooyinka iyo waxyaabahaas idhikaarada business kaarada waxyaabahaas oo dhan lagu sameysan karaa marka waa program cajiib ah qof walba inuu design-kaas oo kale ama design la mid inuu isku soo deyi karaa rajeynaya insha Allah aad baan idin salaamayaa kulan dambe oo xiiso leh qofka muuqaalka sii gaaro hadduu jiro qof saaxiibka oo la jeceshahay inuu asagana muuqaalkan oo kale uu daawado waa sii gaarsii kartaa waana mahadsan